Labada sirdoon Itoobiya iyo Soomaaliya waxay isdhaafsadeen xogo muhiim ah kuna saabsan la dagaalanka argagixisada. Warkaas oo dhammaystiran waxaana la wadaagayo wariyaheen dalka Itoobiya Sacdiye Bajaaj. Timcade mahadsanid. Sida aan ilo xog ogaal ah ka soo xiganay, waxa ay sheegayaan in hay'adaha sirdoonka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan la dagaalanka argagixisada. Agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad loona yaqaano Mahad Kawaanle iyo agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Itoobiya mudane Temesgene Tirune ayaa maanta heshiis ku kala saxiixday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey in labada sirdoon ee NISA iyo NIS ay yeeshaan wada shaqayn ku qotonta isdhaafsiga xogaha muhiimka ah iyo xoojinta dagaalka wadajirka ah ee lagu hayo kooxaha argagixisada. Agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad Mahad Kawaanle ayaa tilmaamay in heshiiskan uu yahay mid macno u leh labada dal ee dariska ah iyo sidoo kale ammaanka Bariga Afrika.